السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta ku xiran janalka Ilyas Daacad soo dhawaada. maanta waxaan soo qaadan doonaa qiso murugo badan. nin tuugsado ahaa oo uu guursaday gabar aad u qurux badan. waxaa guursatay gabar qurux badan oo akhlaaq wanaagsan leh, wiil dhalinyaro ah. habeenkii arooskeeda marka ay u baxeen gurigooda, xaaskana ay u istaagtay siday u soo diyaarin lahayd cashada xagga iyo ninkeeda. marka ay fadhiisatay si ay u cuntayso la jirkiisa ama ay u wada casheeyaan, isla waqtigiiba waxaa iridda u soo gargaraacay nin tuugsado ah. ninkii waxa uu yidhi, yaa waayo waqtigan qofka garaacayo ilbaabka? ninkii waxa uu dhaqaaqay xagga iyo iridda. isla markiiba waxa uu arkay oday faqiir ah oo gaajaysan. waxa uu weydiistay wax uu cuno in uu siiyo. cunno intuu siiyo iska dhaafee, qaylo iyo garaacid ayuu iskugu daray. albaabkana waa uu ka soo xiray. tuugsadihii waa uu iska baxay asagoo gaajaysan oo weliba loogu daray garaacid iyo dhaawac, asagoo murugaysan. waxa uu soo noqday xaaskiisa. way la yaaban tahay waxa soo kordhay. isla markiiba waxa ku dhacay jinni. waa uu waashay asagoo oynaya. waxa ay ka tagtay ayadoo ku dhacay argagax iyo cabsi xaggiisa ah. waxay ku soo laabatay guriga aabbaheed. waxayna joogtay 14 sano ayadoo aan ogeyn waxa ku dhacay ninkeeda. way weysay, maalinna uma soo laaban. marka ay soo martay sanadooyin fara badan, waxaa soo doontay qof raadinayay gabadha in uu guursado. ehelkeedana waa ay ka aqbaleen, waxaana dhacay guurkooda. marka ay gaareen gurigooda, zawjadii waxay u kacday sidii ay u soo diyaarin lahayd cashada. isla markiiba albaabka ayaa la soo garaacay. ninkii ayaa kacay si uu u furo albaabka. waxa uu arkay mid faqiir ah. waxa uu ka dalbaday in uu siiyo raashin oo uu cuno. waxa uu u dhiibay raashin fara badan si ay ugu geyso oona u cuno. waxay u geysay raashinkii si uu u cuno, kama aysan ka soo tegin ilaa uu ka dhammaysanayay. way soo noqotay ayadoo oynaysa. waxa uu yidhi, maxaa kugu dhacay? waxay tidhi, ninkayga hore waaye kan tuugsanayay. asla markiisa ayuu ooyey oohin daran. waxayna weydiisay, maxaa kaa oohiyey? waxa uu yidhi, anna waxaan ahaa midkii tuugsanayay. maalintii ninkaagu waa uu i garaacay, waana uu igu qayliyey, weliba qaylo daran. weligaa ha dulmin qof maskiin ah. ogow, wixii aad qof muslim ah aad ku samayso, adna waa lagugu samayn doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan asxaabta waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin. haddii aad ku cusubtahay janalka, subscribe, like, share, comment.